عدين كله معناها أو يركب كاليها ماشي كأه حمزة عثمان عبد الله ayaa sheegay in dhul uu isaga leeyahay maxkamadda koonfur galbeed ay si ka baxsan sharci darro u xukuntay dibanahan oo ahaa qurba joog ayaa sheegay in dhulkan dartii uu joogo wadanka in ka badan sanad iyo bar waxa uu gacanta ku hayaa waraaqadaha cadaynta ah ee sheegaya lahaanshaha dhulka iyo marqaatiyo waxa uu sidoo kale sheegay in dhulkan uu ku haysto nin lagu magacaabo Mayow حمزة عثمان عبد الله iyo marqaatiyaasha oo si wada jira warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay raadinayaan cadaalad maanta halkan waxa isugu nimaanay taariikhda ay tahay 29 bisha December 2022 yani arin muddo iska soo jiitamaysay oo macna ay ka soo bilaabatay waa guri ani aan leeyahay islaan hore aan isu qabnayna kala tagnay ee faduul ku soo galay nin ani maanta abti ugu aadan oo hooyo la dhashay Mayow Cabdiraxmaan la leeyahay fidnada ka soo arintii dacwo iska tagtay asaa hormuud u noqday xataa in macnaha reerkaas uu soo bushgareeyo ilaa dil xataa la soo hanjabo waa soo marnay qadiideeda maanta waxaan ku soo koobayaa qof dacwada la galay maadaama aniga qof xaqiisa ka maqan aan ahay maxkamadii gobolka inay anaga xukunkeyga siisay oo xukunkii koowaad markaan meeshii fariisanay waxa igu xigay asiga wicitaanka la wacay asoo qiranaya Xamzaan u gaday Ismaan Cabdullaahi dhulkan inuu leeyahay uu qiray marka arintu waxay tagtay in racfaan la iga qaato racfaanka wuxuu noqday racfaan oo dulman ah asigii wakaalad ma haysto qareenkiisana wakaalad ma haysto marka racfaankiina wax alala wax ay cadeeman la imaadeen malaha gobolkana sidoo kale guusheedii labaadna saas ay tahayna meeshan ku qaatay anigoo waliba dhahayo racfaan wada laga qaatay aysan jirin kulli arinta waxay u sii gudubtay maamulkii koonfur galbeed kumeel gaarka ahaa dowlad goboleedka waxaan leeyahay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen arintan soo farageli arin meel sare maraysa ay noqotay anigii waxaan noqday qof hal sano iyo 2 bilood ku daahay xilliga la soo dhaafay muddo hadda la joogo aan ka soo laabtay qorbihii 2 bilood laga joogaa haddaan maqanahay iyo haddii kale macnaha oo lisraahday xukunkan fardaamiya kulli xukun waxa lagu soo fardaamiyay oo hagardaamo oo nooc kala ah la leeyahay waa laga xukumay waxaan rajaynayaa waxaan kaga fadhiyaa maamulka ugu sareeya cadaaladeeda rasmiga ah aniga sida aan ku heli lahaa qof laba xukun wata oo xukunka laga sii qaadayo runtii ma ana filaynin kulli maamulka sare waxaan ka sugayay aniga furguraan ka sugay maahan in dib la iga xukumo waxaan ka sugayna maaha xaqeygana waa duusanaya meel alla meeshan u galana waa u galaya waana u dhimanaya aniga arintan oo dhulkan muddi soo jiitanti ani Cabdullaahi Ali Xasan oo gaduudo la dhaw gadni dhulkan waxa dhul oo abirji ee doodisha barvinti dhulkaasayti oo Hamza Cabdullaahi Usmaan lacangadi xaaji Mayownu lacagta dhiibi intaas ogna inta kolna maxkamad linijay ka hadalni dooni dheeraad soo naqnado jeebadadi intan ku og hadal ano adduunyi aakhirana dimbi inuu soo gaaraan qof laba xukun oo degmada afkay kamara maanta in la dhaho xukun dheeraad ay yimid soo waa laga fiicayeen dadkeena isku dila maaha aniga ilmaha isku haytaan abtii baa wahay ninkaas ilmo Mayow baa walaalkiisa dhalay wax dhibaato ma jiraan saasa xoogna in wiil guriga leeyahay dadkii laga gado mikriyada ayaa taaganba meesha lagu kala gadanay cadaalad in la siyaarno ana cadaalad la siyaarno meesha cadaalad lafta garana wada maanta u weyn koonfur galbeed aabii koonfur galbeed adiga
inaa cadaaladda soo dhex gashaban dadka soo waraysato xaalka waraysaban dadka dhexgal Sida Cali Cabdi Maxamed goobjoog TV degmada Afgoye gobolka Shabeellaha Hoose.